labaatankii sano ee ugu dambeeyay gudaha dalka Soomaaliya waxaa dhibaatooyin kala duwan loogu geysanayay qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee kuwa ajaanibta ah iyagoo ku guda jira howlahooda shaqo meelo badan oo dalka ka mid ah kadib markii ay sii xoogaysatay khilaafka ka dhashay gacan ku haynta dalka ee koox loo kala baxay ayaa waxaa si aad ah u sii badanayay waxyeelada isdaba joogga ee loo geysanayay wariyaasha ku shaqeynaya xaaladda adag iyadoona waxyeelaynta saxafiyiintu hadba kooxaha dagaalamaya iyagoo ay isku eedeynayaan inay ka dambeeyaan Cabdiqaadir Cumar Cabdulle waxa uu ka mid yahay wariyaasha muddo badan ka howlgalaya magaalada Muqdisho kaas oo kooxo hubaysan ay ku toogteen hooyga uu ka deganaa magaalada Muqdisho xilli uu shaqo maalmeedkiisa ka soo rawaxay taas oo sababtay in dhaawacyo kala duwan ay soo gaaraan gaar ahaan dhaawac ka soo gaaray bowdada dhaawaca Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa la soo gaarsiiyay maalmo ka hor magaalada Nairobi isagoona lagu baxnaaninayo isbitaalka weyn ee Nairobi Hospital koox ka mid ah wariyaasha qurba joogta Kenya ee Soomaaliyeed ayaa Cabdiqaadir ku booqday isbitaalka uu iminka ku jiro ee lagu dabiibayo Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa ka warbixinaya xaaladiisa caafimaad kadib imaashihiisa magaalada Nairobi بسم الله الرحمن الرحيم تاني مركي اللي سوق جالسي مقالة نيروبي استمر كان اللي كان إسبيتال كان نيروبي إسبيتال حالة دي دوحي مقارنة من سوق جالسة نوع سوق جاري لقطة مديك نحوها على بقى قيب كميدا شيء لو درسي إن لقصو حاجيو أو ها حد كلبنا أو بأي وحكبي اسمه إسبيتال كمدينة أكثر من يوسف قيب تيلا بنا وح بوليس إسبيتال كان نيروبي هوسبيتال oo lagu kabay waxaan raadinayay hay'adda dhalinyarada Soomaaliyeed ee UIS oo soo qaaday isla markaana halkan keentay ay dalka ay ku bixisay in sidii lagu daaweyn lahaa halkan sida oo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabta kala duwan bahda warfaafinta isku jirnay ee ku sugan magaalada Nairobi oo sida aad daawanaysaan ama u jeedaan baa hareerahayga taagan isla markaana ila qaybsanaya xanuunka iyo dhibaatada ay soo gaaray dhacdadan Muqdisho todobadii bishii ugu soo gaartay inta ku maasantiin boqolina cid ka soo gacan kaysatay waxaan leeyahay ku maasanyihiin cid walba hawada iyo ducaa Soomaaliyeed saxafiyiinta qurba joogta ayaa dhankooda sheegay in ay aad ugu xun yihiin waxyeelada joogtada ee lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan dhaawaca Cabdiqaadir Cumar Cabdulle hadda joognaa maanta isbitaalka Nairobi ama Nairobi Hospital halkaas oo lagu daweynayo mid ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo todobadii bishan magaalada Muqdisho ay koox dabley oo hubaysan ay ku dhaawaceen waa maalintii saddexaad haddaan wariyaasha qurba joogga aan hoggaanayno walaalkeen Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Cabdiqaadir sida uu isaga sheegay qaliinkiisii alxamdulillah waa lagu guuleystay bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ganacsatada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed oo shalay u shaqeynaya walaalkeen Cabdiqaadir Cumar Cabdulle dhammaan waxaan ugu baaqayaa in ay maaragtay door muhiim ah ay ka qaataan oo maxaan ku iraadaaye dadkii keenay ka sokow aan lagu eeganin ayaga oo culayskii la saarin ehelkan culayskii la saarin bulshada Soomaaliyeed u shaqeynay inay ka qayb qaataan waxaan aad u jeclaan lahaa dhammaan saxafiyiinta qurba joogta ee ku dhaqan qaaradda Yurub gaar ahaan Scandinavia oo aan anigu ka mid ahay in ay walaalkood Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo halkan dhaawac ku ay u jeedaan ay isu taagaan sidii wax ugu qaban lahaayeen maadaama ay iyagu ka baxeen nolosha halista oo meel ammaan joogaan waxaan ugu baaqayaa inay ilgaar ku soo eegaan walaalkood qaar badan oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala gudaha dalka ayaa xilligan ku shaqeynaya xaalad adag iyadoona hadafkoodu uu yahay wargelinta waxbaridda iyo madadaalida shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin fara badan ay daashadeen Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV Nairobi